maanta maalintii loo qoondeeyay in ay bilaabanto olaha doorashada madaxtinimada loogu jiro Soomaaliland arintaasi oo uu daahfuray xisbiga udubtaasi oo uu markaasi ku muujinayay taageerayaashiisu inta ay leeg yihiin ama fagaaraha khayriyada ee magaalada Boorama waxa isugu soo baxay taageerayaal aad u tiro badan oo iyagu qariyay dhammaanba banaanka ay meeshaasi leedahay waxaanay dadkaasi isugu soo baxay oo isugu jiray bulshada qaybaheeda kala duwan ay ku dhawaaqayeen halku dhigyo uu leeyahay xisbigaasi udub iyaga oo markaasi watay boodhadh calamo iyo sawirro ay leeyihiin musharaxiinta xisbigaasi ugu tartamaya jagada madaxtinimada ee Daahir Riyaal Kaahin iyo Axmed Yuusuf Yaasiin waxa halkaasi iyagu ka hadlay madaxda gobolka oo ugu horeeyo gudoomiyaha gobolka Maxamuud Cabdullaahi Ciga sida oo kale waxa isaguna ka hadlay duqa degmada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile sidoo kale waxa iyaguna halkaasi ka hadlay xildhibaano iyo markaasi madaxda sarsare ee xisbigaasi udub ee gobolka Awdal iyagu jooga iyadoo oo gunaanadkii iyo gabagabadiina uu kulankaasi ama isu soo baxaasi ballaaran maanta xisbiga udub uu sameeyay uu soo gunaanaday wasiirka macdanta iyo biyaha Cusmaan Cabdillaahi oo isagu markaasi halkaasi ka hadlay waxa ay kaamirada telefishinka Universal iyadu u korgashay dadka dareenkooda qaar kamida oo iyagu markaasi ay wax ka weydiisay sida ay maanta u arkaan waana kuwan iyagu cabiraya dareenkooda anigoo haamila daahir waxa maanta farxad weyn ah oo aan garanaynin shucuurtaydu heerka ay taagan tahay maanta marka aan dadweynaha ama taageerayaasha inta leego soo banbaxay xisbiga udub aad baan ugu faraxsanahay waxaan leeyahay walaalayaalkayga reer udub halka kaga haya taageerada codkeenu meel kaliya ha ahaado salaamu calaykum عبد خليفة أنا تاجرياش waxaan qoriyay taageerayaal taageerayaasha halka kaga haya taageeradiina iyo halkankiina waxaan aad u faraxsanahay anigoo dhalinyarada waxaan aad u faraxsanahay maanta dadweynaha isku soo baxeen farxadayda ma soo koobi karo حسن عيسى